xamdi waxay ahayd ardayad rajo badan ayay ka lahayd nolosha. waxay ka qalin jabisay iskuulkeedii dugsiga sare. waxay doonaysay inay mustaqbalka hooyo noqoto, laakiin wiil ayaa hotel ku ballansaday, kadibna waa la kufsaday. dabaq 6 biyaanahna waa laga soo tuuray si ay u dhimato. mid ka mid ah dadkii ka dambeeyay dhimashada gabadhan ayaa gacanta lagu soo dhigay, waana uu hadlay isaga oo yidhi, xamdi aniga ayaa geeyey hoteelka, waxaana ay ahayd gacalisadeeda. musqusha ayaan ku gala kabaheeda, kadibna waa aan waayey, iyada ayaana dabaqa iska soo tuurtay. mana jirin wax kufsi ah oo loo geystay. waaw, sidee ay suuragal ku tahay arrintan in gabar wakhti badan wax soo baranaysa oo rajo badan ka lahayd nolosha ay iyadu dabaq 6 biyaanaha iska soo tuurto? maxaa ku qasbi kara inay sidaas samayso? muxuu qabanaya wiilka la soo qabtay markii ay booliska gacanta ku soo dhigayeen? kiiska furan ee gabadha la kufsaday dabaqana laga soo tuuray oo weji kala yeeshay. haddii aad doonayso inaad ogaato qisada gabadha la kufsaday, waatan warbixintii aan ka diyaariyey habeenkii ay godka u hooyatay. waxay ahayd ardayad da'deedu ay tahay 20 jir, sanadkan ka qalin jabisay iskuulkeeda Al-Najaax si ay u gasho jaamacad. rajadeedu waxay ahayd inay noqoto doctorayso badbaadisa bulshada qaybaheeda kala duwan, balse nasiib darro waa la kufsaday, waxaana laga soo tuuray dabaq 6 biyaana ah. alla, taasi maxay xanuun badan tahay. marka laga hadlo sheekada aan rabay inaan idiin sharaxo, waa mid xanuun badan, taasi oo ay adag tahay inaad dhegaysato. isku day inaad dhegaysato fariintan oo aad gaarsiiso qof walba oo wax ka bedeli kara, sababi karana in gabadhan ay cadaaladu hesho. adigoo like saaraya muuqaalkan una sheergareynaya asxaabtaada, waad ku mahadsan tahay la socodkaaga. tani waa sheeko ciwaankeedu yahay mid laga xishoodo iyo mid aan laga aamusi karin, oo ah kufsi xanuun badan, taasi oo taabanaysa qoys qurux badnaa oo laga dumiyay mid ka mid ah riyooyinkoodii nolosha. xamdi oo ah gabadha la kufsaday ee dabaqa laga soo tuuray ayaa furtay diiwaan culus oo argagax leh, waxaana walwal badan ay ku abuurtay dhammaan kuwa leh damiirka bini'aadamnimo. waana wax adag in gabar wiil uu ballamiyey kadib ay hoteelka ugu timid, laguna kufsaday dabaqna laga soo tuuray. taliska ciidamada booliska Cadaado ayaa gacanta ku soo dhigay Maxamed Ibraahim Cusbaan, isagoo ahaa ninkii ka dambeeyey in xamdi ay hoteelka imaato, maadaama ay gacalisadiisa ahayd sida uu sheegay, waxaana uu ku dooday inuusan isagu dilin. wiilkan qabashadiisa kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyayaasha booliska degmadaasi, iyagoo tilmaamay inay mar hore hayeen xogaha ninkan lagu tuhumayo inuu qayb ka ahaa kufsigii iyo dilkii loo geystay gabar ardayad ah. kiiskaas markaan ka helay information iyo amaamiir taliskeena guud, aan u howlgalnay si dhab ah. aan isku daynay in yaawd inaan wax ka ogaano waxa soo galaya degmada iyo waxa ka baxaya iyo waxa ku dhex jira. dhammaanna howlgelinay ciidamada. waxaa noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedaysane Maxamed Ibraahim Cusmaan, oo ah ninka lagu eedaynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay xamdi maxamed faarax. ilaahay mahad iska leh mar walba. xisaabta ku darso wararka la xiriira kufsiga gabadhan waxaa ku lug leh sida qiyaasta ah in ka badan 4 qof oo la sheegay inay gabadha kufsadeen kadibna ay dabaqa ka soo tuureen. sidaan ka soo xogtay wariye Cali Aadan Muumin, eedaysana Maxamed Ibraahim Cusmaan oo lagu qabtay magaalada Cadaado ayaa markii laga qorayay galka dambiga yiri, xamdi aniga ayaa geeyey oo ku ballansaday hoteelka, waxaanay ahayd gacalisadeeda. musqusha ayaan ku galay kabaheeda, kadibna waa aan waayey, iyada ayaana dabaqa iska soo tuurtay, balse ma jiran wax kufsi ah loo geystay. wuxuu intaasi ku daray, waxaan u tegay ninkii hoteelka maamulayay oo aan u sheegay inuu ila raadiyo xamdi. kadibna markii aan raadis badan u galnay ayuu igu yidhi, meeshan yaa lagugu diline, iskaga baxso. sidaas ayaana ku soo baxsaday. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, gabar markii qoyskeeda ugu wardambaysay maskax ahaan caafimaad qabtay, macquul ma tahay inay dabaqa iska soo tuurto sabab la'aan? adiga hadda muuqaalka daawanaya, sidee ayaad sheekadan u aragtaa?